السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا وقنصور أونلاين أكاديمي. ما أنت لكم وحن كسو قد بيننا 10 كمدة كورس كبرشدة أساس كحسابته وعنوب بحنه هب أونلاين. كورس كان بالول بوحكة فايديسته وقلال قف أو صومالية وتشوجا تنيد دعالة داوده أنتينا 10 كبلابين waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim tahay inaad muuqaalka share gareyso si uu u gaaro bulsho u ooman oo baahi weyn u qabta. hadii marka casharka hore u sii socono casharku waxa uu ku saabsan yahay isku qaybinta. waliba isku qaybintu marka ay leedahay haraaga waxaynu soo gudbin doonaa hab aad si fudud u gaari karto jawaabta aad u baahan tahay. halkan waxaa inoogu yaala 638 oo loo qaybiyo 4 kaba soo qaad inay tahay lacag 638 oo ay qaybsanayaan 4 qof waliba intee ayuu helaya. markaynu xisaabta noocan ka shaqeynayno isku qaybinta shaqadeenu laba meelood bay ka socon doontaa, xaggan sare iyo xaggan hoose. waxaanaynu adeegsan doonaa aqoonteennii isku dhufashada iyo kala goynta oo inaga caawinaya inaynu gaadhno amaba aynu ka shaqeyno isku qaybinta. haddaba tirooyinka aynu halkan saari doonaa waxay isugu jiri doonaan ama ay ka koobnaan doonaan 1 ilaa 9. tirooyinka halkan hoose inoo taxmi doonaana waxay noqon doonaan haraayada soo hara iyo dhufsanayaasha 4. tirada halkaa mar walba inoo taalla ayaad dhufsanayaasheeda halkan ku qoranaysa. marka haddii aynu fududeyno oo nidhaahno tirooyinka xagga sare saarmi doona ee topka xagga sare ah iyo bottom numbers aynu nidhaahno halkaas aynu kusii diyaarsanayno si ay inoogu fududaato hadhowto inaynu sameyno isu qaybinta. waxaynu leenahay tiradaas ugu horeysa imika halkan waa inoo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. waxaynu leenahay oo aynu adeegsanaynaa tirooyinkan 1 ilaa 10 ayuun baynu ku dhufanaynaa tiradaynu doonayno inuu ku qaybino. tiradaynu maanta waxu qaybinayna waa maxay? waa 4. 4 hal ku dhufo markaa jawaabta halkaas aynu dhiganaynaa waa 4. 4 laba ku dhufo jawaabta halkaas aynu dhiganaynaa waa 8. 4 saddex ku dhufo waa 12. 4 afar ku dhufo waa 16. 4 shan ku dhufo waa 20. 4 lix ku dhufo 4 ilaa 20. 4 toddoba ku dhufo waa 28. 4 sideed ku dhufo waa 32. 4 sagaal ku dhufo waa 36. 4 toban ku dhufona waa 40. tirooyinkaasi waa tirooyinka inaga caawinaya hadhowto inaynu helno tirada ugu dhow ee ay u heli karaan 4 wax qaybsanaya mar walba markuu haraa inoo soo haro. haddii aynu kusii soconno markaa tan ugu horreysaynu eegaynaa godka u horeeya iminka 638 haddaynu nidhaahno 4 aynu u qaybino waynugu ballaaranaysa. markaa waynu kala googoosanayna 4 6 ma u qaybsantaa oo 6du ma badan tahay? haa. haddii halkani ay 4 ka yar tahay un macnaha ay tirada halkan taalla ka yar tahay un baad u baahan tahay inaad labadan isku qabato. marka waxaanu leenahay 6 4 u qayb way iska fududahay tani oo qofkiiba hal baa kusoo hagaagaysa. marka halkii baynu xaggaa sare saaranayna hal 4 ku dhufo markaa isku dhufashadaas ay inoogu xigta oo wuxuu halkaa saarmay iyo ka baynu isku dhufanayna. deedna waxay inoo noqonaysaa jawaabtu halkaa 4 baa inoogu dhacaya hoostaynu ku xariiqanayna. marka labadaasaynu kala jarayna isku kala goyn baahee halkaa inoo timi. labadaa markaynu kala jarno waxaa inoo soo hadhay 2. stepka saddexaad waxa weeye inaynu soo dejino tiro kastoo halkaa taalla. tiro kastoo bartaa taalla ayaynu soo dejinayna. markaa 23 bay inoo noqotay. sababtaynu haddaba tablekan u samaysanay hadda ay inoo imanaysa 23 marka loo qaybiyo 4 intay u helayaan. waxaad eegaysaa un tirada marka 4 lagu dhufto ugu dhow 23. haddii aanay 23 jirin tirada ugu dhow kana yar marka waxaan leenahay halkan baynu 23 ka baaraynaa ama tirada ugu dhow 24 baa ku jira. 24 waxaan u baahanay tiro ka yar. 24 tirada ka yar maxay noqonaysaa 20.
labaatan kaasaa markaa halkaa inoo soo gelaya labaatanka maxaa keena shan marka waxaynu noqonaynaa tirada ugu dhoweey ay u helayaan waa maxay waa shan shan afar ku dhufana waa labaatankiyo way inoo diyaarsan tahay sideenii caadi ahayd labadaas aynu kala jarayno labadaa markaynu kala jarno maxaa inoo soo haray saddex tallaabada ku xigtaa maxay ahayd tallaabada ku xigtaa waxay ahayd inaynu soo dejinno godkaa u soo dejinno deedna maxay inoo noqonaysaa sideed godkaa markaynu soo dejinno sidii aynu 3 uga soo shaqeynay oo kale ayaan baynu tan uga shaqeynayna oo waxaynu leenahay tira marka 4 lagu dhufto 38 ugu dhawaatay ee kuwa aynu taxanay ku jirto 40 laakiin nasiib darro 40 kuwa uu ka wan yahay 38 teebayna caawin doonta 36 ayaynu shaqeynaysaa 36 maxaa keenay marka waxa keenay 9 lagu dhuftay 4 marka bartaan waxaynu saaranaynaa 9 halkan maxay inoo noqonaysaa 36 oo ka timi xagee 9 oo lagu dhuftay 4 36 labadaas baynu kala jaraynaa deedna maxay inoo imanaya halka 2 talaabadii ku xigtay waxay ahayd inaynu soo dejino laakiin maanta waxaynu soo dejino ma hayno 4na way ka weyn tahay maxay 2 marka labadaas maadaama aanay 4 u qaybsamayn waxaynu leenahay way soo hadhay qof waliba markuu qaato 159 afartii qof $2 baa soo hadhay marka $2 waxay noqonaysaa remainder hadhaagaynu sheegaynayna waa kaa haddaba jawaabtan waad hubin kartaa inay saxan tahay iyo inaad wax khaladay waxaanad ku hubin kartaa inaad labadan isku dhufato hadhaagana u geyso 159 ayaad waxaad ku dhufanaysaa jawaabtii iyo waxaad isku dhufanaysaa qaybtii labada tire bartayaal baad isku dhufanay labada markaynu isku dhufano waxay noqonaysaa 36 saddex baynu wadanaa 4 baynu 5 ku dhufanaynaa 20 saddexdeenu u geey 320 marka labaynu wadanaa 4 hal ku dhufo waa 4 iyo labadeenu wadanay 6 inta maxaynu ku daraynaa haraagi oo maxay ahaa 2 haddii ay jawaabta soo baxda ay la mid noqoto taa gudaha ku jirta waxaynu ka shaqeynaynaa waxay noqonayaan sax marka waxay noqonaysaa halkan 630 iyo 8 oo inoo sheegaysa waxaynu ka shaqeynay inay saxan tahay mar labaad haddii aynu soo gudmarno waxyaabaha aynu sameynay waxay ahaayeen markii koowaad aynu doonaynay inaynu kuwan isku qaybino shaqada halka ka socota iyo shaqada xaggan hoose ka socota ayaynu doonaynay inaynu sii fudaydsan dabeedna tablekii isku dhufashada ee aad horeba u taqaanay aynu ka soo qaadanay columnka 4 macnaha 4 marka lagu dhufto hal waa 4 sidii baynu ku wadnay ilaa iyo 40 baynu gaarsiinay macnaha oo waxaanu ka soo qaadanay 10ka number tirooyinka halkan yaalla marka waxay noo noqdeen kuwa xagga sare la saaray kuwana kuwa inaga caawinaya inaynu kuwa helno ugu dambeyntiina waxaanu ku jagaraynay ama aynu ku hubinay jawaabteennii isku dhufasho intaas ayaynu ku joojinaynaa amaba uu ku eegyahay casharkeennii aynu ugu talagalay isku qaybinta ee maanta haddii aad jeceshahay inaad si online u barato xisaabta oo aad ku beerto fasalada aanu hadda qaadanayno waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran mahadsanid